Soomaalida aan iraahday jaaliyadda Soomaalida UK ayaa sheegeen inay soo wajahday halisa. Jaaliyadda Soomaalida UK ayaa bilaabay inay Soomaalida u sharaxaan sidii ay u wajihi lahaayeen xaaladda soo cusboonaaday ka gadaal markii dhowaan ruux Soomaali ah uu dilay xildhibaan Ingiriis ah. Dhibaatada jaaliyadda soo wajahday haatanba ayaa waxaa ka mid ah inay soo gaarayaan fariimo hanjabaado ah iyo inay isbedel ku sameeyaan habnololoodkoodii. Hogaamiyayaasha jaaliyadda ayaa ka wacyigelinaya Soomaalida nidaamkii ay ula dhaqmi lahaayeen haddii lacala booliiska ay la kulmaan ama su'aalo la weydiiyo loo baahdo. Waxaa xiran wiil asalkiisu yahay Soomaali kaasoo lagu magacaabo Cali Xarbi Cali, da'diisuna tahay 25 sano jir. Wiilkan ayaa ku dhashay Ingiriiska isagoo takhasus dhakhtarnimo diyaarinayay. Sidoo kale waalidka ruuxa xiran ayay dhowaan booliiska Ingiriiska ka qaadeen telefoonkiisa gacanta si baaritaan dheeraad ah loogu sameeyo.